Moscow mar hore ayay dareen diidma ka muujisay maalgelinta militariga Ukraine ay ku hayaan reer galbeedka si ugu yaraan Kiev ay awood ugu yeelato maquuninta mawjadaha militari ee ka imaanaya quwadda ka awoodda badan ee Moscow. wasaaradda difaaca ee dalka Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay hub iyo qalab culus oo militari oo la aaminsan yahay Kiev inay ka heshay Mareykanka iyo wadamada kale ee reer galbeedka. waxaana muuqata bartilmaameedkan in uu ka dhacay xarun tareen oo u dhow magaalada Soledar ee dalka Ukraine sida ay ku warantay wakaaladda wararka u faafisa Ruushka. ciidamada cirka ee Ruushka ayaa weerarka u adeegsaday gantaalada hawada sare ee saxda ah sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda difaaca ee Ruushka Major General Igor Konashenkov. waxa uu intaa ku daray in weerarka sidoo kale lagu dilay cutubyo kayd ah oo ka tirsan ciidamada Ukraine. wasiirka difaaca ee Ruushka ayaa toddobaadkii hore sheegay in militariga Ruushka ay u tixgelin doonaan gaadiid kasta oo NATO ah oo hub u qaada Ukraine bartilmaameed sharci ah oo la burburin doono. ciidamada Ruushka ayaa sheegay inay burburiyeen keed badan oo qalab militari ah oo ka yimi Mareykanka iyo dalal kale oo Yurub kuwaasi oo yiilay meel u dhow saldhigga tareenka magaalada Bohodokhiv ee gobolka Kharkiv ee dalka Ukraine. Moscow ayaa in dhaweydba muujinayay muhiimadda ay u leedahay inuu si toos ah oo maangala uga jawaabo fariimaha u muuqda barbar istaagga ee ka imaanaya dunida galbeedka ee ku socota Kiev.